Bismillahi Rahmaani Rahiim. Chicken ayaan sameynayaa whole chicken xalay la sii marinate gareeyay iyo khudaartaaseeto bacdii aan ku daboolnay xalay aan ka qaadayaa chickenka sooskaaseeto waxaa laga sameeyay yogurt, toon, paprika, bay leaves warqadaas waaye maxaan ku dhahay qal cusbo iyo liin dhanaan waan ka bixinayaa hadeertaan si aan khudaarta salka ugu dhigo chickenkan ka bixinayaa hadhowna waan ku soo celin doonaa insha Allah khudaartii salka u dhigayaa markaas bismillah bacdi chickenkii aan ku soo celiyay tartiib markaasa kabacdi waa dabooleynaa waxaan ku dabooleynaa xaashidaas waxaa waaye waxaa la dhahaa baking paper kaasaan si fiican ugu dabooleynaa si uu steamka nooga bixin uu noogu huuro baan ku daboolanay meel walba wax xiray geesaha gelinay waxba ma noqonayso ma ku go'ayso waxba kuma noqonayso waxaa loogu talagalay baking paper laha inta badan keega hoosta loo dhigaa waxa waaye aluminium haddana dusha kasii saareynaa waa kaasa haddana dhinaca kale waxa waaye balac iyo dherer labadaba waan ku daboolay si ay wax qiiqo u bixin kabacdi tareegaasaan saaray si uu igu fududaado ovenka inaan ku geliyo markaasa maasha Allah kabacdina ovenka ayaan geliyay kor ma aha hoosna ma aha dhexda laakiin oo low ah dhexda ayaa waxay kala tahay dhex high ah iyo dhex low ah marka waa dhex low ah meeshaan geliyay saacad baan u geeyay 150 waxa waaye saacad markaasa ovenkii saacadii way dhamaatay marka waxaa soo sameynaynaa waa ka soo bixinaynaa and then waa ku celin doonaa waa u gaabinaynaa xaanshida aan ku daboolaya hadda rabaa inaan ka qaado waa kaasa xaanshida waxba ma noqonin may googo'in may gubanin waa ka caadiya u eg tahay lagu dabooli karaa dhib male saasuu yahay marka maxaan sameynaynaa sooskaas aan ku shubaynaa bismillah so shishiid ayaan dusha ka marinayaa burush ma haysto waa kanaan kugu marinayaa laakiin burush haddaa haysatay isticmaal burushka ka fiican so shishiidaan marmarinaa so dabool la'aan this time sauce waaye waxaa geenaynaa halkaana 180 waaye iyo half an hour u geenaysaa slow cooking this time masha Allah isku soo noqonaynaa bismillah in the meantime intuu noosi karaya chickenka waxaa sameysanaynaa bariis cad oo plain ah so 3 koob bariis aan soo dhaqay halkaan 2 qaado oo waxa waaye saliid iyo subag ah saliid caadi ah subagaaneeto waaye waxaan ku dhahayay high temperature oo baan ku maaragtay waaye dabka so waxaan ku darayaa adigu qaado weyn camal bariiska cad cusbo yara badan uu qaataa uga badan laakiin annaga cusbo okeen ku jecelnahay midaan ku jecelin adigu iska qaado hal qaado weyn camal oo kala cusbo halkaan ka talkaanaan biyo kusoo karkarsaday waan ku shubaynaa so xoogaa yariisa wuu ka kormaray
ka kormarsiinaysaa bariiska biyaha ka kormarsiinaysaa bariiska wax yar adoo kale waa ujeedaa xoogaa yariis xubniya bar dhihi lahaa soo hadaboolin intuu biyaha ka gursanayo oo biyaha ka dhamaysanayo hadaboolin saas ha ahaado ilaa uu biyaha ka dhamaysto markuu biyaha dhamaysto dabkana waa u gaabinay waana daboolin biyaha markuu dhamaysto baa isku soo noqonaynaa soo hadana 15 daqiiqo ka bacdi chickenka u soo noqonay okay let's see meesha maraya soo saas u eegay ma sha Allah qurux u eegay kana dusha kaga shubay sidoo kale soo la tamaata saas ugu burburi marmari guduudkeeda si uu ugu tirtirmo uu u guduudiyo chickenka korkiisa soo waa kana bariiskii biyaha waa dhameysan rabaa wax yaraa ku harsan intaasaa ku harsan soo wali wuu u dheer yahay intaas yartaa sugeynaa kabacdi ayaa ka gaabinayna qayriisu salka leeyahay soo aluminium aan saarayna soo avoid qiiqa iska qari qiiqa dhan waxaa rabaa inuu gudaha bariiska noogu bisleeyo yeah, that's how it looks at the moment. So I'm just gonna burn it on top so it looks like more grilled. You can grill it. The grilling option. See the rice after 10 minutes. So after 10 minutes, the rice is done. The rice is very cooked and it's not I use just the best way. So bismillah, is stopped. The grilling on top. 5 minutes. Look at that, mashallah, so good. Yes, markaasa hadirtaan 5 daqiiqo grilling ahayd kor way dhamaatay saas uu egyahay roasted qurux uu egyahay masha Allah so there we go hadaa rabtid baradhada inay ku shiilmato chickenka ka bixi ku celi hadana roasted kaas geysa again so bismillah waa kaasa chickenki iyo bariiski iyo khudaarti masha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karaa ku dhahay markaasa set the table kii la set gareeyay table for 2 masha Allah tabarakallah yum markaasa